ciidamada BSF ciidamada qaranka ay ku biireen hadaa sanatar Soomaaliya aad Mareykan u ogolayd inay mushaar siiyaan haddana waxa uu ogolaanaysaa dawladda Soomaaliya inay mushaar siiso ayada awlaaha ayada ka mudan ciidankaasna ciidan tababaran oo la dayici karo waxa sheegtay 2021 khilaafaad dhacay ilaa hadda inay xayireen waxay dhawaateen karaan deegaamada joogan haddii aysan ciidan noqon dawladeed قوي جيش مالي وادي كران ليش ربان بيدي كران لكن هذا عيدا دولة الصومالية يكون حساب تما يسوي تريون واشياء يكون حساب تما يسوي شقة قرن قبنية إذا مدنا كنتم يأفر قضبك كنتم يأفراد أيا إذا مدى الدفاع إذا مدى حوك دلك الشيء دولة قبلات لقلا قرقرتميو سيدي هذا السنة كلها وإن لقيه الشيء قضب كساسة وحشيء إن واحد كسر لقيه الشيء دولة دستور هذا ولا كله دستور كي فرعه دستور كله بحي أي قرية قدر كيس كنتري أفراد بقرية أفر شيء أو دولة الفدرال كا أود هذا السيء أو أن قرقرتن لجلين عندنا الرماها الدبدة كم ده في زوينك هذا لقى عبادي immigration الرماها الدبدة سفارة مفرن كران دولة سفارة مفرن كرت وكيل كدولة قبل هبل بعد مغلسة مد أد سبب جوجي مد مال كلا جوج مفرن كران حرير دبدة ميالا كران والله كل يو أمر ما immigration لعك ما سمي سنكران دولة قبل واحد قدب دستوريا هدي اللي يراده العقب يسمس عيدا دفاعنا ما سمي سكران عيدا كالدفاع أيا أوه عيدا كالدفاع انت أصل اسكوافه عيدا ماذا دفاعنا ضدك الصوماليات بكي مانا قبل الله الصوماليين السيسمون بوجوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ميلك استوى جوكتان سود وهذا وشنت نوفمبر سنة كاللباكون يشن ياللباتن ugu dambeyn waxaan idin xaqiijinaynaa sida wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka uu shaaciyay in ciidamadii ugu tababarka badnaa ugu awooda badnaa ee Puntland 17 sano ka shaqeynayay difaaca Puntland xilligan ay ku biireen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadaasi waxa ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin magaalooyinka Boosaaso iyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug adkaatay qodobkaas waan dul istaagi doonaa dawladda federaalka oo aan hal fursad qasaarinayn qalad kasta oo ka dhaca hogaamiyaasha ay ishayaan way ka faa'iideysanaysaa iyada oo markaasi ku garaacaysa wasiir fiqi doodiisi baarlamaanka aqalka sare aan dhahe maantay wixii uu ku socnaa iyo waxyaabihii uu ku qaldanaa iyadana waan dul istaagi doonaa gaar ahaan qodobkan oo uu cadaynayo in ugu dambeyn uu xaqiijinayo in Soomaaliya ay qayb ka tahay dagaalka ka socda Suudaan albumbuunina maahan in diyaarada meeshaas ka duula ay Jaad iyo Niger iyo galbeedka Suudaan ay wax geeyaan maxay geeyaan oo qaadaan ma garanayna anaga taasi waxay u baahan tahay in la xaqiijiyo oo meeshaas la geeyo in niman Colombian oo calooshu shaqaystayaal laga qaado waxa soo dhan reportski qoraya laakiin anagu hadda xaqiiqo uma hayno waxaan xaqiiqo u hayn hadda ma aragtay ku si fogaan weyna ma sheegi karno halkaas aan uga baxaynaa laakiin dadka ka soo jeeda deegaankaas maadaama garoomada iyo controlkoodu oo hadda iska local noqdo dawlad goboleedyadu inta badan nin walba yiri meesheeda la ima soo gali karo qaarkood waajib gaar ah saaran senatarada in anagoo muslim ah dad walaalaheena dhibaato gaaraysa inaan siyaasad ahaan u daboolno oo indhaha ka indhasaabno runtii waxaan ku dhacaynaa
waxaan difaacayna qaladka weyn baan ku dhacayna labadaas qodob ayaan dul istaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan dhamaantiin muuqaalkan iga share gareeyo oo la gareeyo YouTube-kana ku soo biira aad baad u mahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodobka koowaad markii ugu horeysay asaaskii Puntland iyo markii ugu horeysay markii dawladda federaalka dhidibada loo taagay xilligan ciidamo aan ka amar qaadanayn Puntland aan ka amar qaadanayn Puntland oo hoostaga dawladda federaalka ayaa ku sugan magaalooyinka Puntland maxaa khalad ah maxaa sax ah horta dastuurka federaalku gaar ahaan dastuurka ku meel gaarka ah hadda 2012 ciidamada hay'adda ama taqaanaa jinsiyadaha iyo socdaalka baasaboorada iyo waxaas immigrationka wasaaradda arrimaha dibadda foreign affairs-ka iyo lacagta waa awood ay xaq u leedahay dawladda dhexe ee dalka gorgortana kuma jirto sharciyan markaan ka hadlayna markii dawladda federaalku xaq bay u leedahay in ciidamo iyada hoostaga ay ku leedahay guud ahaanba dalka Soomaaliya waa wax sharci iyo xaq ay u leedahay way dastuurkaana u ogol cid kula murmi kartana ma jirto Puntland markay ma ogola iyada in ciidan gudaheeda uu ka dhex sameysmo iyada oo aan laga heshiin arrimaha dastuurku ka mid yahay khayraadka dalka qaabka loo qaybsanayo iyo haykalka dawladnimo ee Soomaaliya halka ay aadayso madaxdii Puntland soo martay iyo dawladda Puntland ay hadda jirto ma ogola laakiin sharciyan waxa xaq u leh arintaas dawladda federaalka Soomaaliya haddaba arintaas dood badan ay dhalisay wasiir Axmed Macalin Fiqi uu ka gareelay nimankii reer Puntland ee golaha joogay Farola kamid aha Cabdilaahi Golay baa kamid aha uu kaga gareelay qodobkaas markuu yiri ana dastuurkii oo galay inaan ciidamo meel kasta ka qorto waa qodob gar ah dastuurkii buu ku hoos galay maxaa markay keenay in maanta Puntland ciidan laga qoro gudaheeda waa siyaasad xumada hoggaanka Puntland ee xilligan talada haya waxaa jirta warbixin aan xilliyo hore idin la wadaagaan aan idin iri Puntland gacanta Ismaan Maxamuud ku burburi doontaa dad baa markaa waxay iiga moodinaan qabiil u jeedo laakiin xaqiiqadan sheegay madaxdii Puntland soo martay Cabdulaahi Cadde Farole iyo Gaas waxay ahaayeen madaxweynayaal banaanka dagaal uga yimaada iska difaaci jiray guulna ka gaari jiray dagaalku gandooda kama dhalan jirin ciidankaas maanta inay hoos tagaan dawladda federaalka annaga reer Puntland wada hadlayna Soomaalida kale baakin igala in ciidankaas maanta dawladda federaalku ay fursad u heshay inay ka qorato waxa sabab u ah tani iyo dagaalkii uu la galay 2021 boosaaso ka dhacay ninka ilma adeertiis xallin waayay waa Ismaan Maxamuud waa Maxamuud Yuusuf waa ilma diyaan ciidanka oo tabashadooda xallin waayay umada kale ee reer Puntland ma ka difaaci karaa cid ay ishayaan oo kale maanta qabiil kale oo reer Puntland dawladda federaalka ma soo raacin xataa wasiir Fiqi wuxuu oran karay ciidanka Jimcaale dawladda federaalka hoos tagaan ee danab ma oran BSF kaliya sheegay ciidamada danab ee xaruntoodu tahay ligle ee Jimcaale haysto ee Ciise Maxamuud wasiir Fiqi ma sheegin ciidankii ilmadiyaan u sheegay soo marka maanta uma jeedaan waxaan dhowr bilood ka hor idin sheegay inay maanta soo baxeen Ismaan Maxamuud ayay sababsan doontaa Puntland waa hadii Puntland dagaal ka dhaco ama civil war ka dhaco madaxweyne dani hal talaan siinaya madaxdii hore ee Puntland dagaal dibadda bay ka baqi jireen oo ku nasteexaynaya adeerkay baa tahay weligeena saasa kugu nasteexayn jiray la heshiin nimankaas boqorkaagii u tag nimanka Ismaan Maxamuud ee ma taqaanay u tag qurbo joogtii ganacsatadii kulli la hadan qardha tag jooji siyaasadan aad cidla taagan tahay dadkaagiina aadan wadan
ma jiro qabiil kale reer Puntland maanta dowladda federaalka la saftay ama la jooga nasteexadaas dad waxay moodayeen inaan dani u danaanin igama aha laakiin aniga Puntland waa gurigayga Puntland ma rabo inuu dagaal sokeeyo ka dhaco inay burburtaan ma rabo waana cid kastana waa uga lixla jecla badanahay la hadal dadkaas كل ما قادنا ستلوين كان كوسو جدينا وأجنه لكن سهدوا وصان لورده تلا لما سين أنا مرة روان شيء وأنا سيجري طلب إذا كاس لفريسو ونمان كاس طلقها أهل كأتين إذا كاس المضيانو إذا كاس قلبه إذا ما بنت لهم قدر إلى شاس ده يردا وحوضنا وفصح ندك هداد هذه جاتشان كدريا أو ما تقارنا جاتشو مركي جاتشو ده بان ربعين عن حكمه وجو ضدكو قولكو وحرنان ميان ماشي رساقات كيلا يان بياديان ولاش اسبيل كودا مشارات كودا سي له شيء وطلكا والما اديرتا ميلك لا ادي ميسان يا لغو سو دخمري ما وادنا ليداhay dhanka galmudug Puntland maanta looga soo duulay wasiir fiqi ciidamo habar gidir oo inta qortay warayno Puntland ku soo duulay miyana leedahay maamulka waqooyi bari bay dowladda federaalka ka soo duulaysaa ciidan dhulbaantaaba ay ugu soo duulay نبليد سماها وزير فقه محو كفانيا كروي قال كعيب بوساسان عيدا مضيدو كشغينا سوق ما فانيا ييهن عيدا كو عيدا عثمان محمود انا رنت كو شيغنا ددك كله اي سرنت كو شيغين نمان كتلكا يا لهشي انا رنت كو شيغينay رالي جلينا كبخي غلطاتكي دغالكي بوساسو ولو اد markii hore raalli gelin ka bixisay nimankaasna tabashadooda xalli oo yeer boqorkii kulli isugu yeer leeshi hadaadse aad gees u baxdid ogow ciidamada kale ee Puntland gacantaada ka bixi doonaan taladaasna aan ku siinayo saadaashaydiina inay rumowdo ilaahay kama bareeyo waxaan iri Puntland gacanta Cisaan Axmed ku burburaysa laakiin saqaabka hadda wax ku socdaan way u muuqataa ilaahay kama dhigo dadka kale ee reer Puntland waxaan leeyahay cilad bay leeyihiin Soomaalida kalena way ila aragtay ciladaas waxa weeye aamus kaasi cilad ku leeyahay waxa la moodayaa marka inay raali ka yihiin waxa dhacdadaas marka lagu haysto ma hadlaan ismadoodu oo u jeedaan nimanka Cisaan Axmed meelay wax la marayaan runta u sheego iska dhacshan nimanka وهذا الرجاء كقبطان واحد بنت لان يراهدو إن أي سيجرتو يسن قيال إدين جلين كوانا حمري آدين أو حمري متقانا إن حسن شيخي آدين كوانا بنت لان يجوغان هادونا وحي رمانينا يدقال سكايا إدين قليان وإدين كدحدين اسكوكين لايان هيا لنا ها أقبلنا قعنتا كقبط المديانا واد غبان كرتان سيد عبد الله يدينا واد غبان كرتان هداد الله كينسي ساس dadka u fiirfiirsataan anigu waa arkay dadka reer Puntland yiisimadoodii kulli aqliyadaas leeyahay qolay dhul baantaa waxay oran jireen wardani maana laga qabto waa dabeecad aan leenahay weeye ma waxay ka tahay aqli darri bay ka tahay ma siyaasaday ka baqayeen inay faraha la galaan walow ismada Puntland yiri siyaasadda waa loo diidayo xilli hore laga saaray ma arintaas ay oofinayaan baashi marka isku dhabaqdo oo xaaladii meel ay dareen ka dhacdo markaas ay soo baraarugaan inta bahasha la qaban karo balaayad dib la qabtay la daba la horay la qabtay ma qabanayaan hadda nimankaas iska qabta waxaan ka sii digayaa dagaal sokeeyo inuu Puntland ka dhaco dani oo ciidamo kale oo reer Puntland wata iyo ilmadiyaan oo ciidamo kale oo federaalka wata inta jeer ay isku dagaaleen gudaha Puntland waad garanaysaa nimankaas tolka ah hadii Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta madaxweynaha Puntland ay garashadiisu siin wada inuu tolkiis la heshiiyo war la heshiisiyo oo Google u dhiga reer Puntland nidaamkeena siyarkaayo aynu ku socaana maalay inuu naga burburo ma rabno Soomaalida kalena waan u sheegaynaa waa meeshaad ku badbaadeen Puntland waa hooyo siyaasadda waa lagu kala duwanaan karnaa laakiin ma aqbalayna inay Puntland anaga dhexdeeda intaas oo qof oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin in qalalaas laga sameeyo dawladda federaalkuna inay qalalaas Puntland ka abuurto ma rabno wasiir fiqi haduu ciidamo qoranayo ciidamo samaysanayo masaajid cali guduud iyo aadan yadaalba uga baahan dagaal annagu dagaal siyaasadda Puntland gudihiisa ka dhaca ma rabno laakiin saxaq buu u leeyahay garbu ku taagan yahay inuu dhaho
ciidan baa Puntland ka qoranayna cid u diidi kartana malaha dastuurkaana u ogol ciidankaas markuu ujeedada loo qoray waa ujeedada siyaasadeed ma aan Puntland ammaan weeye ciidamada BSF dagaal bay Puntland ku jirta argagixiso ciidamadaas dagaal ku jira in la dhabar jabiyo ma rabno dawladda federaalkuna ciidanka waxay u adeegsan kartaa waa ujeedooyin siyaasadeed annagana ma rabno in ciidamada Puntland la isku diro dawladda federaalka culays ka badan uu haysta geed kasta in gubta hostal waa inay awoodeeda ku jayso meel kale laakiin sidoo dani ku xumeynaysa in ciidamo kale intay qorato iyadoo Puntland ogeysiin hadhow Puntland nidaamkeedu inuu ka soo jeedo isfoodo isdiraan arrintaas waa arrin qatar ah oo madareer Puntland dib ku ah wasiir fiqise garbu u leeyahay oo dastuurka aan qoranay baa u qoraya kuma eedayno wax xaq uu leeyahay way annaga reer Puntland marka wada hadlayna aad iyo aad qodobkaas halkaas idhig waa aniga idan iri fursad kasta oo dani dayacay oo xasan ka faa'iideysta wardanayo dadka kama aabaweynid wardanayo dadka la tasho war rag adduunka rag baa ku nool war hadaad shalay dhul bahanta dhasigtay waa u jeedaa hadaad shalay ilmadiyana dhasigtay maanta u jeedaa guriga yaan lagu soo galin baan ku leeyahay gurigaaga yaan lagu soo galin nin raga walaalo wuxuu ku dhaaman lawaa dadka aad iska kibrinaysid inta iswaaweynaysid iska weynaysid hadhowna aad cabaadka ku dhufanaysid markay iska ka dhiciyaan kuma qabato dadka tolkaaya la heshay qodobka halkaas inuu ka tagay wasiir Axmed Macalin Fiqi doodaas baarlamaanka maanta ka dhacday haday aan lahayd ciidamada garbu ku joogay senator Faroole iyo Cabdi Cabdilaahi Gole labada senatorna uga garhelay arrin soo hartay qodobkan wasiir Fiqi wuxuu sheegay in diyaaradaha Boosaaso ka taga ay wax geeyaan Suudaan waxa ay geeyaan aysan garanayn wuxuuna ku daray Abuluul Suudaan in ka daran baa Puntland haysta wasiir Fiqi halkaas wuxuu ka muujiyay xifaaltan iyo si gaar ah inuu garabka u saarayo Puntland wasiir Fiqi waxaan leenahay markii Puntland iyo Saciid Cabdilaahi Dani kala saar arrinta aad sheegtay in mataqaanay dagaalka Suudaan ay Soomaaliya qayb ka tahayna su'aalo badan kaaga soo laabanaya oo sharci ah waa mid koowaad waxaad sheegtay inay diyaarado isticmaalaan garoonka diyaaradaha Boosaaso Suudaan tagaan cadaynteedii keen oo qodob waa mid labaad ruqsadda yaa siiyay ilaa Puntland waa state ka tirsan dawladda federaalka ah yaa ruqsadda siiyay waxa tiri diyaaradahaas waxay geeyaan ma ogin hawada Puntland lama socono waxa ka soconay garoonkaasna kama warqabno Puntland ma Soomaaliya ka go'day waxaad halkaas muushishay qirasho in dawladda federaalku aysan awood u lahayn hawada dalkeeda inay xakamayso waxa soo galayna aysan ka warqabin adiga waxaad isleedahay dani ku xume iyo Puntland ku xume laakiin si wax kugu soo laabanaya adiga Puntland cadee haday Soomaaliya ka go'day markaas Puntland baan eeda dusha ka saarayna laakiin si inaad marna dhahdaan nidaamkii e-visa dalka ku soo rognay marna inaad dhahdaan ma taqaanay hawada Soomaaliya la isticmaalayo Boosaaso la isticmaalayo ma ogin waxay diyaaradahaasi geeyaan iskuma kaaya qabato joojiyay lacagta $60 oo aad guranaysaan cadeeyana inaan xukumin hawada dalka markasta oo cadeyn la'aan aad kiiska Boosaaso uga hadashaan waa jiri karaatuun waa la istoomi karaa oo aad eedda meel cidla isaga tuurtaan ogaada saad hadda senator Faroole iyo Cabdi Cabdilaahi uga garhelay wasiir Fiqi dastuurka baana dastuurka laga garhelaya okay waxaan ku ogolaanay inaad xaq u leedahay inaad ciidamo ka qoratid gudaha Puntland waa dastuurka ku dhigaya afartaas waa hawada ciidamada lacagta iyo arrimaha dibadda hawadii hada xaq u leh markay kaaga aqbalna ciidanna Puntland baan ka qoranaya amniga Boosaaso ciidan baan ka qoranaya BSF ay jooga gorowana ciidan ay jooga halka ciidan ay jooga sax dawladda federaalka in ciidankaas hoos tagaan markaas dawladda sirdoonkeedii kulli way joogaan Puntland sax Boosaaso Suudaan baa duulaan looga qaadaa mana ogi waxa ka socda bal adigu iskaaya qabadsii inta iskaaya qabadsii qofka adoona caayino balkeena la weydiiyaa waxaagu markay Soomaaliya ciidanka Puntland joogana waxaan u isticmaalayaa siyaasadda Puntland baan ku burburinayaa iyo dani hawadii Soomaaliya aan rabay inaan difaaco maadaama adigu aad xaq u leedahay hawada
دولة السودان حتى كما يسندرين ليس كدولتها كسو حد قد بسوماليا ما أنتينا قدب أد سوماليا أسو جيدو يا أتري سوماليا غيبي كتحي دقالك السودان وقاعدة دولة السودان دعوة أي قد بسي وإماراتك تشاد إيا ليبيا إن لو قصو دولة السودان إيا كينيو إما قال ماذا طيارة سر سوماليا كما جرت وزير فقه يساقو وزير قران بوحو قرايا إن سوماليا لو قد دولة السودان عدينا ما هي ولما وحو عدينا يا إنو سوح بأوغين مركز ما الصوماليات هذا سمعة حمد أسوجيدي مثل سمعة دود أسوجيدي سمعة حمد أسوجيدي أضاء إسله الدنيا كحمة فعل كستأو وناك سنة هذا أهان لايد إي فيزا هذا أهان لايد إذا ماذا قرن الدولة الفدرالية